bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga SBS xarunta Muqdisho waxa idin waramaysaa anigoo Nimco Cabdisalaan Maxamed qodobada warka ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Addis Ababa oo qayb galaya shirka 33aad ee madaxda Afrika wasiirka Batroolka Soomaaliya iyo Suudaan oo Khartoum heshiis ku kala saxiixanaya ciidamada gado ee ku sugan ee xasilinta loo digay oo looga digay waxyaabo amniga qalqal gelin kara qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan iminkana u diyaar garoow warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galaya shirka 33aad ee madaxda ururka IGAD waxa inoo faahfaahinaya warkan wariyaheena Shaafici Cabdinaasir Shaacir madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ugana qayb galay shirka 33aad ee madaxda Afrika ayaa ka qayb galay shir gaar ah oo isla Addis Ababa ka dhacay kaasi oo looga arisanayo colaadaha iyo dhibaatooyinka ammaan ee ka jira dawladda da'da yar ee Koonfurta Suudaan gadaal dagaalo ahli ah oo muddo ka socday wadan weynihii la isku oran jiray Suudaan shirkan ayaa qayb ka ahaa fulinta dhaqangelinta heshiisyo kala duwan oo ay madaxda isku haysa siyaasadda dalka da'da yar ee Koonfurta Suudaan u kala saxeexdeen dhowr mar oo hore marka laga soo tago shirkaasi gaarka ahaa ee looga hadlayay xaaladda cakiran ee ka jirta Koonfurta Suudaan haddana waxa uu madaxweynaha Farmaajo maanta uga qayb galay isla Addis Ababa shirweynaha 33aad ee madaxda Afrikaanka ah ee ku bahowday urur goboleedka IGAD oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya shirka 33aad ee madaxda ku bahowday urur goboleedka IGAD ayaa muddada uu socdo waxa looga arinsan doonaa arrimo ku saabsan ammaanka dhaqaalaha iyo siyaasadda wadamada gobolka ee dhaca qaaradda Afrika gaar ahaan kuwa ku midoobay urur goboleedka IGAD oo kamid ah ururada waaweyn ee ka jira dunidan aan guudkeena saaranahay Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaafici Shaacir SBS Muqdisho maamulka gobolka Gado iyo kan degmada Beled Xaawo ayaa ciidamo xasilinta loo geeyay beledweyne u sheegay waajibaadkooda waxa ayna dhinaca kale ay ku eedeeyeen Kenya inay faragelin ku hayso maamulka degmada Beled Xaawo iyo kan gobolka Gado iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa gudaha degmada Beled Xaawo kula hadlay cutub ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo Beled Xaawo loo geeyay xasilinta amniga waxa ayna u sheegeen inay mas'uuliyad weyn iska saaraan ilaalinta amniga muwaadiniinta mas'uuliyadooda la saaray Cabdulcasiis Cabdullaahi Xareed oo ah gudoomiyaha degmada Beled Xaawo ayaa ciidamada u jeediyay dardaaran kooban walaalayaal waxaad tihiin ciidanka xasilinta degmada Beled Xaawo waxaad tihiin ciidanka dawladda Soomaaliya ee federaalka ciidanka xasilinta looguma talagelin inuu qof handada inuu qof dhibaateeyo waxaa loogu talagalay inuu cadowga degmada ka qabto waxaa loogu talagalay nabadgelyo la'aanta cidii wado in ay magaalada ka qabtaan magaalada waxaa la rabaa in masaajidada si nabad ah loogu tukado waxaa la rabaa si nabad isbitaallada in loo aado waxaa la rabaa si nabad ah ganacsiga in uu u socdo waxaad tihiin ciidan qaran maalinkii yawmal qiyaamada waa la weydiinayaa mas'uuliyadda aad qaadeen shacabka reer Beled Xaawo ama shacabka Soomaaliyeed baad u qaadeen shacabka asaga waxaa inaad garab istaagtaan walaalayaal ilaahay baan idinku dhaariyay mas'uuliyadda lin saaray oo maanta aad wadaan si daacad u guto qabiil ha ku darina ninkan baa saaxiibkii ha ku darin sharci gacanta ha ku qaadanin qof kasta oo Soomaali baad mas'uul u tahay waad maqlaysaa ninka kale oo ii sheegay madaxda iina waxaa loo baahay mar saabka ku soo dhaweyn rabaa waxaa loo baahay mas'uuliyadda aad haysaan maalinkii yawmal qiyaamah waa la kula xisaabtami
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gado Cismaan Nuur Xaaji ayaa u sheegay ciidamada in amaamiirta dowladda ay qaataan kana digtoonaadaan in shacabka ay xabad ku dhex ridaan. Waxa uuna dhinaca kale uga digay Kenya in ay arbushaad laga sameyn beled xaawo ay qayb ka noqoto. amarka aad fulinaysaan waa amarka dowladda, lama raba marka wax kale oo jirin in lagu darsado. waxaa tiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed degmada Badaxa oo shacabka degan waad aragteen markaan hadda imaanisay dawladdu u jecel yihiin noo soo dhaweeyeen. waxaa laga rabaa waxa xasilinta aad u tiin waa degmada shacabka jooga inaad mas'uul ka tiin inaan xabad lagu dhex ridin, cid ku ridaysa inaad tilaabo ka qaataan. waxaan idin sheegayaa ciidankan nimanka hadda Madheero dhex galay hala weeraro dawladda ma soo amrin, annagana ma amrin. hadda dawladda hala weeraro wali meedan tiri annaga meedan ruura hala weeraro saaki ayagoo magaalada bil ka qaato oo maxaan ku raahdaa ay qaadkooda iyo qashinkooda waxooda ka gato soo saldhig xabad kuma aysan bilaabin, ma gacmaha laga laabtay. waad la dirteen in waad ka disheen, labana waad ka dhaawacdeen. waxaa hadda dariiska leen kugu dhiibi maaha ayaga kaligood maaha. degmada Badaxa waxa gacanta ku hay dawladda Soomaaliya, adinkaan mas'uul kaga ma leedin ku dabagalay mar dambe taliyihiina la weydiinayaa. waxaa laga rabaa amarka la siiyay inaad qaadataan. Kenya waxaan u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku gabanaya oo maxaan ku raahdaa ka soo arbushaya saldhigga Badaxa sax ma ahan arrintaas. madaxda Kenya haday ku ogtahay waxaan sameyn doonaa in halkan aan ka arbushno annaga. madaxda Kenya waxaan sameyn doonaa haddii arbushkaas ay amar ka qaadan waydo inaan halkan ka arbushno sameyn doonaa haday amarka fulin waydo. waxaan ugu digaynaa dawladda Kenya daris baan nahay, waxaan ilaalinaynaa wanaagga, waxaan ilaalinaynaa nidaamka ilaalisa in saldhiggeeda noogala soo baxo oo nagala soo arbusho ma yeelin. waxaan u dul qaadanaynaa maaha. dhowaan ayay ahayd markii beled xaawo ay degeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka si ammaanka magaaladaasi ay u xasiliyaan. waxaana intii ay joogeen beled xaawo ka dhacay isku dhacan khasaaro badan dhalin oo u dhaxeeya iyaga iyo ciidamo ka amar qaata wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya ay aaminsan tahay inuu yahay dambiile baxsad ka ah sharciga. wasiirka batroolka dowladda Soomaaliya iyo Suudaan ayaa Khartoum ku kala saxiixanaya heshiis is-afgarad ah. wariyaheena Ismahaan Caraweelo ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. wasiirka wasaaradda batroolka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Axmed Maxamed ayaa dhigiisa Suudaan kula kulmay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. ujeedada safarkan ayaa ahaa sameynta saxiixiyo is-afgarada oo labada dal dhex maraya. ka hor saxiixan iyo heshiiskan waxaa kulamo wada tashi ah wada yeelan doona wasiirka batroolka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Axmed Maxamed iyo wasiirka batroolka dalka Suudaan Caadil Cali Ibraahim, sida uu sharaxaya safiirka Suudaan u fadhiya Soomaaliya. waxaan soo dhaweynay caawo wasiirka batroolka oo booqasho rasmi ah ku jooga wadanka Suudaan ku imaaday caawo gaar ahaan magaalada Khartoum. wasiirka insha Allah booqashadiisa waxay qaadan doontaa 2 maalmood. wuxuuna la kulmi doonaa wasiirka batroolka dhigiisa ah. wuxuuna booqan doonaa hay'ado kala duwan oo isla wadankan 2 maalmood uu joogo. isla markaasna wuxuu saxiixi doonaa ama ay kala saxiixan doonaa hadduu Ilaahay idmo isaga iyo wasiirka dhigiisa ah heshiis is-afgarad ah. marka booqashadaasi waxaan rajaynaynaa inay noqoto booqasho miro dhal ah. sidaad la socotaan Suudaan waxay gashay marxalad oo ka duwan marxaladihii hore. waxayna cagta saartay in ay caalamka wax la qaybsato. waxaana ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan xiriir aad u qoto dheer oo muddo soo jireen ahaa oo lahaa dhinacyo kala duwan gaar ahaan dhinaca thaqaafada. anaga ka safaarad ahaan tiimka safaaradda iyo safiirka aniga ah waxaan xooga saaraynaa in aan xiriiro kala duwan aan la yeelano qaybaha kala duwan hay'adaha sida gaarka ah noo khuseeya aysan ku ekaanin xiriirkeeni sida thaqaafada iyo waxbarashada kaliya aysan ku ekaan oo aan la helno xiriiro kala duwan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay dowladda Suudaan ee walaalaha nahay.
safarkan saxiixa daba yaalla ee wasiirka batroolka jamhuuriyadda dalka uu ku tegaya magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa imaanaya xilli 8 bishan Febraayo ee sanadan 2020 uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qalinka ku duugay sharciga batroolka ee jamhuuriyadda dalka. Ismahaan Cabdikaafi Guuleed, SBS Muqdisho. sawirka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay mudane Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ayaa lagu dhajiyay darbiga hoolka Mandela ee magaalada Addis Ababa. Wariyaheena Aadan Macalin Aadaamo ayaa warkan inoo faahfaahinaya. madaxweynihii ugu horeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliyeed marxuum Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde kana mid ah aasaasiyaashii ururkii midnimada Afrika oo maanta loo bedelay midowga Afrika sidoo kalena ah madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee xilka si nabad ah u wareejiya ayaa sawirkiisa la suray darbiga hoolka Nelson Mandela oo ay ku xardhan yihiin sawirada madaxdii iyo aasaasiyaashii ururkii midnimada Afrika. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliyaan xubno ka tirsan xukuumaddiisa ayaa kormeeray halka ay suran yihiin sawirada madaxdii Afrika ee ururkii midnimada Afrika waxaana ay eebba uga baryeen in jannadii firdowso uu ka waraabiyo madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya marxuum Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. horay uguma oysan muuqan sawirka madaxweynaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde darbiga balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa suuro geliyay eebba ka sokow in sawirka madaxweynihii hore lagu dhajiyo halkan. tani ayaana tilmaan u noqonaysa doorkii ay Soomaaliya ku lahayd yegleelidda iyo aasaasidii ururkii midnimada Afrika markii dambe loo bedelay ururka midowga Afrika iyo xilligan la joogo. saameynta ay muuqata weli dowladda Soomaaliya ay ku dhex leedahayba. ugu dambeyntiina marxuum Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ayaa noqday madaxweynihii 45aad ee sawirkiisa lagu dhajiyo darbiga hoolka Nelson Mandela ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Aadan Macalin Aadaamo, TV-ga SBS Muqdisho. xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya ayaa habeenkii xalay casho sharaf ugu sameeyay Muqdisho odayaal dhaqameed ku sugan Muqdisho oo ka yimid Puntland iyo galinka shanaad. wariyaheena Muniir Kaskey ayaa warkan inoo faahfaahinaya. xeer ilaaliyaha qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa casho sharaf ugu sameeyay hoyga uu ka degan yahay Muqdisho isimo iyo odayaal dhaqameed Puntland iyo dowladda deegaanka Soomaalida ka soo jeeda oo Muqdisho u yimid xalinta arrimo ku saabsan dhiig la kala galay. ka gadal casho sharaftan xeer ilaaliyaha qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Suleymaan Maxamed ayaa odayaasha u sheegay ujeedada cashada inay ku kooban tahay oo kaliya soo dhaweyn iyo weyneyn mudneed in horey loo sameeyo balse uu saamixi waayay waqtiga. sharaf weyn bay ii tahay caawa inaan idinku soo dhaweeyo hoyga aan ka deganahay magaalada Xamar oo aan filayo inay ahayd inaan mar hore idinku soo dhaweeyo laakiin hawshii ay ismada u yimaadeen oo ay ku mashquulsanaayeen baa keentay inaan caawa soo dhaweeyo. waxaan ka cudur daaranayaa haddii ay cashadii la sameeyey meeshii loo baahnaa ay gaari weeday. waana wax iska martiqaad kastoo la yimaado waa in hadalkaa ka dhacaa sababtay tahay waxaa laga yaabaa standardkii loo baahnaa aysan ajiib garaynin. marka taas waa ka cudur daaranayaa. isimada kala duwan ee caawa halkan noogu yimid na aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan ilaahay ka rajaynayaa in hawsha weyn ee bulshada Soomaaliyeed u heesaan muddada dheerna u soo heeseen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idinku guuleeyo dhammaantiin annagana aan noqono intii hawsha ah heesaan idinku taageerta oo markasta idiin noqda gacmaha isticmaal lahaydeen oo adeegsan lahaydeen. kelmadeedu waxay ku koobantahay kaliya mahadnaq.
casho sharaftan uu xeer ilaaliyaha qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane Saleymaan Maxamed uu sameeyey isimadan iyo nabadoonadan ku sugan Muqdisho oo ka yimid Puntland iyo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa qayb ka ah martiqaadyo wajiyo kala duwan lahaa oo Muqdisho loogu sameeyey isla iyaga. Munir Muuse Bujeeti, Munir Kaskey, SBS Muqdisho. warkii waad kala socoteen SBS TV Muqdisho anigoo nimca idin socodsiinayay shaasha uu soo saaray waa inaga intaan warka xiga dib hawada ugu kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaa iyo amaana Allah.